cabdikariin axmed mooge hargeysa way kuu hiilisay si aanay qofna ugu hilinin bay kuu hiilisay maxaad ugu abaalgudday waad kala qaybisay laba daamood baad ka dhigtay maantana golihii deegaankaad kala qaybisay cabdikariin axmed mooge halkii aanu geynay waxba noogamuu qaban codkayagina meel bannaan buu dhigay reer buu naga dhigay iyo qabiiluu noo kala jebiyey ay tahay hargeysi wadnihii Somaliland maanta waxa weeye wadnihii uu xanuunsanayaa wadnihii cudur baa galay aamin daa horta inuu dawoobo inuu yeela sidii madaxweynihii hore mulkiilaha qaranka Muuse Biixi Cabdi haddaan naga mari weydo caasimadu laba mahayir bay yeelanaysaa xoolaha daanteeda laga keenana daantiina damba lagu dhisi maayo madaxweynahana tala khayr qabta oo wanaagsan oo hargeysa wadana ayaynu ka filaynaa kana rajaynaynaa sidii looga bartay waxaan aad u salaamayaa dadka degan suuqan gobonnimo oo si sharaf iyo karaamo leh noo soo dhoweeyey saxaafadda haweenkayga quruxda badan mar labaad waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadalkaygu ma badna saddex qodob baan ka hadli doonaa qodob waxaan odhan doonaa maayirkayga caasimadda qodobna waxaan odhan doonaa madaxweynaha maanta dalkaynoo hoggaaminaya qodobna waxaan odhan doonaa dadweynaha reer hargeysa ee dantu ka dhaxayso saddexdaa qodob buu hadalkaygu ka kooban yahay meeyarkayga waxaan odhanayaa meeyar cabdikariin axmed mooge hargeysa way kuu hiilisay si aanay qofna ugu hilinin bay kuu hiilisay maxaad ugu abaalgudday waad kala qaybisay laba daamood baad ka dhigtay maantana golihii deegaankaad kala qaybisay halkaad ku waddana nin weyni waa garanayaa laakiin ma dhacayso halkaad ku waddaa waxa weeye madaxweynaha maanta dalka loo doortay inaad mucaaradad u samayso oo aad dagaal geliso oo aad ummadda ku kiciso laakiin ma dhacayso madaxweynahana mid baan waxaan odhanayaa madaxweyne dadku adigu ku doortay inamada dawladdaada ka buuxee juniorka waxaa la yidhi nin 20 jiray intuu geed ka boodaa buu tala ka boodaa ragga dhallinyarada dawladdaada u badan ee aan waayo aragnimo siyaasadeed lahayn ee aan waayo aragnimo aqooneed lahayn madaxweynaha ku sii daynin talada talada way hororsanayaan way hormasaartoonayaan madaxweyne adigay ummaddu ku dooratay dalka ictiraaf baad u keentay kalsooni baad maanta shacbiga ka haysataa madaxweynaha ku sii daynin talada madaxweynahana midkaasaan odhani midna waxaan odhani dadweynaha waa garanaysaan 49kii halkaynu ka soo bilownay foolxumada ay colaadu lahayd halka laynugu wadaa oo meel foolxun magaaladeennu feejignaanaynaa waynu wada ilaashanaynaa kala qaybsanaan mayno dhan baynu u wada jeedanaa yaan layna kala qaybinin hargeysa midaba ayna anfacda nabadgelyada ayna anfacda horumarka ayna anfaca cadow badan baynu leenahay maanta dalkii hargeysa nabad qabta waa la socotaan cadow badan baynu leenahay meel walba waa laynooga soo bu'aya nabadgelyada aan labada gacmood bay isugu geyno shacbiga hargeysa waxaan ka codsanayaa sagaalka degmadu doonaha ka soo jeedo waxaan leeyahay waar nabadgelyada caasimadda aynu u feejignaano waar meel xun baa lagu wadaa waar dadaan xilkas ahayn baa si xun wax u wadaa waar aynu meel uga soo wada jeedno anugu hadalka intaasaan kaga tegayaa waana mahadsantihiin si wanaagsan noo soo dhoweyseen insha allahu tacaala hal qodob baan ku darayaa waxaan ku darayaa maayarkayga caasimadda maayar haddaad iscasilayso waxaad u dhiibaysaa iscasilaadaada maayar ku-xigeenkaaga waayo qodobka 45aad baa bannaynaya farqadiisa koowaad baa bannaynaysa adigoona kala qaybinin oo aan hargeyso u abtirinin iscasilaadaada qor maayar ku-xigeenkaaga u dhiib ha jeer gareeyo isagu ha gaadhsiiyo golaha doorasho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa shacabka gobta ah ee reer hargeysa reer gobonnimo aad iyo aad baan idiin salaamayaa hargeysi maaha caasimad keliya ee waa wadnaha Somaliland
waa halka ay ka bilaamato horumarka nabadda iyo rajada shacabku hargeysa waxay gashay wakhti xasaasiya oo aad u xun waxaa ka dhex taagan khilaaf aad u xun golaha deegaanka khilaafka waa la iskhilaafi karaa fikrad waa la isku diidi karaa aragti siyaasadeed waa la isku diidi karaa laakiin waxaa muhiima sidee loo wajahaa sidee loo maareeyaa ayaa muhiim ah oo u baahan la isweydiiyo ma aha maayar yaa magaalada hargeysa ka noqonaya iyo yaan ka noqonayn ma aha hargeysa yaa u talinaya yaan u talinayn taa layskuma hayo su'aasha dhabta ee meesha taalla waxa weeyaan oo la isweydiinaya waxa weeye hargeysa see loo mideeyaa hargeysa horumar see loo gaadhsiiyaa hargeyso oo nabada waxay ka mid tahay hargeyso oo maxaanku dhahdaye deggan hargeyso oo maxaanku dhahdaa shaqo abuur laga sameeyo hargeyso oo qurux badnaataa waa somalilan oo qurux badan su'aasha dhabta ee meesha taalla waxa weeye horta waa taa ma aha maayar iyo maayar ku-xigeen ee waxa weeye hargeysa saynu u midaynaa saynu horumar u gaadhsiinaa su'aasha dhabtii waa taas weeye mar hadday tahay hargeysi wadnihii somalilan maanta waxa weeye wadnihii wuu xanuunsanayaa wadnihii cudur baa galay aamiin dhaa horta inuu dawoobo inuu dawoobo wadnahaasi aamiin jidhka soo ma aha wadnaha horta xubnaha ugu muhiimsan soo ka mid maaha haddaba waxa weeye dawu u baahan yahay dawadiina waa la garanayaa sida lagu dawaynayo waa midnimo amni iskaashi iyo horumar taasaannu maanta annaga horta u taagannahay maanta wax kale oo maanta aannu dee u taagannahay oo aannu ka hadlaynaa oo dareenkayga ku shaqaynayaa oo aannu ka talinanaa horta wataa mayna saasi saxayn oo sax maaha waxaannu doonaynaa in xal degdega laga gaadho khilaafka amni darradaa soo socota dhaqaale burburkaa soo socda kala qaybsanaantaa soo socota in si dhaqso ah looga gaadho waxaan baaq u dirayaa madaxweynaha qaranka inuu soo farageliyo oo arrinkaa maanta dhex taagan golaha deegaanka iyo caqabaddaa ku soo socota madaxweyne waxaan baaq kaaga soo dirayaa arrinkaa inaad soo dhex gasho ood si xal aad ka gaadho waxaa soo socdaa waxa weeye oo layska garanayaa khasaaro siyaasadeed ayaa soo socda khasaaraha siyaasadeedna waxa weeyaan waa somalilan oo khasaarta ilaahoo na khasaarna taasina mad reer gobonimo mad yeelaysaan reer hargeyso mad yeelaysaan ma ogolin waxaan ku soo koobayaa in baaqayaga la dhegaysto oo waxa weeyaan la tixgeliyo oo shacabka reer hargeysa la tixgeliyo oo waxa weeyaan si dhaba looga soo jawaabo ayaan ku soo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan u salaamayaa xaafadda 26 juun oon maanta ubuucdeedii joogno iyo suuqii gobonimo iyo kii idaacaddaba intaa kadib laba arrimood baynu isxasuusinaynaa horta kow waxaannu ku jirnaa munaasibaddii aasaaska somalilan 18 May taa waa inaynu xasuusnaanaa oy kow ka ahaanaa degmada 26 juun abaabulkeeda iyo diyaargarowgeeda doorka waxoogaa jara waqashwaqash baynu ka dareemaynaa ciddii hawsha haysay laakiin dhexda xidha waa qodobka labaad caasimadda hargeysa waxaa ku soo kordhay in dhaweydba loola ku saabsan maayarnimadii oo aan hayn wakhti aan loo baahnayn gacmo aan loo baahnayn inay ka shaqeeyeen cidda arrinta iyo masiirka caasimadda hargeysa ay ku xidhan tahay waa xubnaha golaha deegaanka hargeysa
qofka soo raaca odayga u ahi waa madaxweynaha qaranka Soomaaliland madaxweynahana tala khayr qabta oo wanaagsan oo Hargeysa u dana ayaynu ka filaynaa kana rajaynaynaa sidii looga bartay haddii la haydhaa waxaa la gaadhay wakhtigii xaafadda 26 Juun iyo suuqa gobonimoba ay hoggaamin lahayd maayarka caasimadda Hargeysa insha Allah waanay noqonayaan walaaladeenna maayar Khadar iyo maayar ku xigeen insha Allah Saciid Cabdi intaa wixii ka dambeeya waa inoo bacdo diin may haddii la haydhaa خير بان رجينيا دمان شعبك Soomaaliland iyo shacabka Hargeysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haddii aanu nahay suuqa gobonimo ahna dalada quudiya adeeg dhammaan gobonimo markaanu nahay annaga xildhibaanada noo yimid ee sharafta leh ee qaaliga ah markii hore waxaanu dooranay maayirka caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge halkii aanu geynay waxba nooga muuqaban codka iyagina meel bannaan buu dhigay reer buu naga dhigay iyo qabiillu noo kala jabiyey maanta waxaanu dooranaynaa Khadar iyo Saciid Curay oo maayir ku xigeenka caasimadda noqonaya waxaanu leenahay madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa masayrka iyaga inaad noo hirgeliso oo halkaanu annagu doonayna haddaan nahay shacabka reer Somaliland weliba khaasatan reer Hargeysa waxaanu doonaynaa inaad noo doorto kaanu dooranay waxa weeyaan Khadar iyo Saciid Curay baanu doonaynaa xildhibaanka iyo xildhibaanada la socda dhammaantoodba waxaan leenahay iyagaanu ku kalsoonahay iyaga ayuun baanuna codka iyaga siinaynaa waxaanu doonaynaa weliba haddii ay dhici weydo arrinkaa oo si fudud oo dhaqsale faraha u gelin weydo oo soo faragelin weydo Soomaaliland way qaybsamaysaa laba reer bay noqonaysaa adaana qaybiyey waxaanu kuu sheegaynaa madaxweyne waxaanu doonaynaa inaad arrinkiiyo masayrkaanu leenahay noo hirgeliso dhammaan waanu mahadnaqayaa waxaan halkan ka salaamayaa xildhibaanadana soo booqdayna waan soo dhawaynayaa waxaan halkan u sheegayaa horta maayirka caasimadda anu halkan madalka uga faa'iideysanayaa waxaan leeyahay maayir marba qawl ayaad adiga iyo xukuumaddaadba ku caanamaasheen laakiin marba qawlku wuu soo xidhmay hadda xildhibaan baa la doonayaa degmadan xaqeedii daantaadaad ku dhistay namana matashid xildhibaanana matalaanu dooranaynaa maxana ka hadlayaa dhammaan suuqa gobonimo gaar ahaan ururka qorax joog baan ka socdaa waxaan doonayaa madaxweynuhu inuu yeelo sidii madaxweynihii hore mulkiilaha qaranka Muuse Biixi Cabdi waxaan doonayaa labadii maayir ee ku tartan madaxa saar waxaanu ku leenahay waajibkaanu ka marnay naga mar haddaan naga mari weydo caasimaddu laba maayir bay yeelanaysaa xoolaha daanteeda laga keenana daantiina dambe lagu dhisi maayo